تيال مانتي أو أي تاريخ دو تاي أفر اللواتن كي بيشي كوي توناد لبدا كون يولح يتوانكا أو أي كوبيغان تاي مالين قميصة برنامج كيني قميص لها أي نكوسو بندقيني waxyaabihii ay qabatay akademiyada toddobaadkii tagay looguna diyaar garooway toddobaadka soo socda khamiistan waxa inoogu marti ah wasiirka arrimaha gudaha mudane Cabdiraxmaan Udawa sidoo kale wasiirka amniga gudaha mudane Cabdirasaaq Umar iyo gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka heer qaran Marwo Xaliima Yare barnaamijka intaan ku guda jirno waxaanu ku soo qaadan doonaa guud ahaan inspection-kii khamiislaha ahaa ee ay weligeed sameey jirtay akademiyada booliska generaalka Kaahiye ayadoo khamiistan ay ka xiiso badan tahay khamiisii hore daawasho wacan أمنيغا بوحا إيو نبا بلشدو كنغا دي تاي أمنيغا بوحا إيو نبا شرف كان كسو قيب قشي برنامج كقميص لها أكاديمية وإلى أفر هورين أو كترسان عيدا كفحريسان أكاديمية بوليس كجنرال كاهية أو دياروا إنا إنسيان سالان سلان توحى هقامين يا كورمير السدحات عبد الله محدين يبرو أو معلم كترسان معلمين تا أكاديمية هورينتا waxaa calanka waxaa hogaaminaya محمد عبد الرحمن نور waxaa calanka sida زكريا محمد حسن waxaa gabar leeli sarkaalada laguna magacaabo Faadimo Cabdi Maxamed ayaa hogaaminaysa hoorinta koowaad waxaa hogaaminaysa gabar leeli sarkaal lagu magacaabo Faadimo Cabdi Maxamed
waxaa ku xigta leeli sarkaalad kale oo lagu magacaabo deeqa faarax cumar oo ka mid ah ardayda wax ka barata akademiyada booliiska jenaraal kaahiya huruntaanna waa huruntii tababarka 2 sano ku soo dhammaysatay dalka Uganda waxaana hogaaminaysa hurunta ugu dambaysa qaali Ahmed Cadaan شربتها
Somaliye, Bahariyo, Bahariyo, Kadala.
Police
hawada sare gurnimada u baaba kay ka baasan weligii booliska weeya sidaya, o bila hantida go.
سويراتي لكو نبابي يا وليدي ولسويا نبابي يا وليدي ولسويا نبابي يا وليدي ولسويا نبابي يا وليدي diiradda iyo ujeedada warkaya dalabka suugaanta waxaan uga tan leeyahay macnaha idin ma deeqsiinay dabaaliya damiin foorare doqon wax loo sheegay kuma diirsadaan meel caday kaga dalcaabaane hadday deyrta kala xiidatee dirirka naafuuba duufaanta iyo abaartana dhacday dib u shallaayaane dareenkiina fura dhagaha waa inay duleedaan dirinta ku taalo dahnigaaga laabtay qalbiga waa la dirirtaa he dib u dhaca la yaab kale nin raga waa dabqanayaa he dabaal iyo ninkii duufsan iyo doqoniyeelkeere isku duubni kama maarantay dowlad hana qaada dega bleesle sida wada jir waa lagu dadaashaahe ninkii dabacsanoo waa inaa duubka xirataa danta guud daryeel iyo xurnimo waa ku digataahe dal islaama diinta iyo sharciga waa dugsanayaa dulmiga iyo qabiilka iyo xaqana waa dudumiyaane dagaal haba dhaxyee waa inaa dib u habaysaane dadka leesu dumo dirirta waa laga heshiiyaahe diris iyo qaraaba iyo xigtadii daawiya kala guurtay ha isdaawatee nabadda waa lagu dekeeyaahe dareenkiina fura dhagaha waa inay dareenkiina fura dhagaha waa inay duleelaane dalkii iyaga burburay iyo dadkii dalagii naafoobay dib in loo habeeyo iyo haddaa doogii garateena isu diirnaxdeen waa inaad daacad noqotaane degdeg ugu adeegtaan bulshada aad u kala daadsan dareenka iyo shucuubta ee qalbiga weesdardarayaane waxay doonayaan dib u dhis iyo dowlad qarameed iyo daryeel iyo dastuur wada jiray daacad iyo maamul dadaal loo dhanyacay iyo midnimo lagu damaashaada calanka danooda iyo xirko daaha laga qaaday iyo dayaxka nuur badan hadduu dulundulceeyhaayo indhahaa ku doogsada qalbiga waa ku dararaahe indhahaa ku doogsada qalbiga waa ku dararaahe ha isdaawatee nabadda waa lagu dekeeyaahe dareenkiina fura dhagaha waa inay dulee waxaana deeqda dowladde horta nin walbo waxaana deeqda dowladde waxaana deeqda dowladde markalay dib u dhiskeera ku dadaal waxaana deeqda dowladde dib u dhiskeera ku dadaal waxaana waa mahadsantihiin dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay barnaamijka khamiislaha akademiyada booliiska jenaraal kaahiye waxaan leenahay marti culus oo mug leh ayaa maanta inoo joogta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed odawaa ila soo dhaweeya sacabka marka ugu horeysa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa wasiirkeena amnigo asagana horeyba noo wehel noogu ahaa mudane cabdirasaaq maxamed cumar ila soo dhaweeya waxaan kaloo soo dhaweynaynaa gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer qaran marwo xaliimo yari ila soo dhaweeya iyaduna waxaan kaloo jirta waxaan jeclahay dhammaantiin soo dhawaada ma aha barnaamij gaara oo ah idinku casuunay waa tartankii weligii ka jiray akademiyada ee loogu diyaargaroobi jiray toddobaadkii tagay iyo kan soo socda mudane wasiir taagnaanshaha iyo ididka kaa da'aya ma aha ee qaab aan kugu talagalnay ee waa astaanta akademiyada kusoo dhawo waxaan kaloo jecelnahay barnaamijka daadihintiisa waa aniga heeganna waa inaga qoslisay laashinkuna waa inoo dhammaystiray gabagabadii gunti ayaan joognaa si akademiyada astaamaheeda qayb ka mida loo xuso waxaan kusoo dhaweynayaa kusimaha taliyaha akademiyada ahna taliya ku-xigeenka akademiyada mudane ama gaashaanla sare mukhtaar gaawow taliya kuma jeedo soo dhawo taliya gudaha wasiirka amniga qaranka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka sareeyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyaasha ciidanka xoogga dalka oo hadda iiga muuqdo hal sareeye kuwa kale ay joogaan ay dhici karto saraakiisha sare ciidamada qalabka sida
xildhibaanada kuwa hore inay jireen iyo kuwa hadda jooga way isku dhex laban yihiin laakiin xildhibaanada ka soo qaad saraakiisha hoose ciidamada qalabka sida saraakiil xigeynada nimanka tababarada ku jira oo isugu jira laba qaybood sida aad arkaysaan difcaddii sanadkii hore lagu soo tababaray dalka Uganda iyo difcadda sanadkan oo hadda tababarka uga socda akademiyada booliiska Soomaaliyeed ciidanka layli dablayaasha oo tababarka ku jira macallimiinta kooxda heegan kooxda banda musico iyo dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay munaasabada maalinta khamiista akademiyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaanka bacdi mudana wasiir waan ku faraxsannahay inaad nagala soo qayb gasho maanta oo khamiisa oo aan leenahay bandhiga maalinta toddobaadka la soo dhaafay maalinta toddobaadka ku xigana la isfaro waxyaabaha la rabo in la qabto khaladaadkii wax maalintii la soo dhaafana la saxo maalintan waaye adigoo howlahaagii badnay nooga soo dan mooday inaad aragto waxa ka socda akademiyada iyo horumarka uu sameeyayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed adiga iyo marti sharafka kula socda soo dhawaaw aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan ka rajaynaynaa tusaalooyinkaaga iyo amarada aad nafarayso inaan anaguna qaadano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynaa dhammaan martida sharafta leh ee maanta halkan nogala soo qayb gashay oo ugu horeeyo xildhibaankii hore wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa iyo xildhibaanka ugu horeeyay ugu cusub ee soo gala akademiyada xildhibaan cusubna waa yaana xildhibaan horena waa xildhibaan cusub waa yaana waa soo dhaweynaa ku soo dhawow aan leenahay runtii mudane wasiir iyo xildhibaanada kale iyo saraakiisha sare ciidanka dhammaan inta maanta halkan taagan kan nagala qayb qaadatay hadday ahaan leed ardayda ku jirta dugsiga iyo hadday ahaan leed kooxaha baambe iyo heegan intaba waxaan leenahay ku soo dhawaada waxaana sharaf noo ah inaan wasiirka iyo xildhibaanada aan halka aan ku soo dhaweyno runtii wasiirka muddo badan ayuu runtii aan shaqo ahaan isugu dhowna maadaama wasiirka arrimaha gudaha uu yahay meelo badan isaga ayaa ka hoos imaana waxaan rabnaa inaan maanta uu nala qaybsado uu nala arko ardaydan oo aan qiyaasahay intooda badan inuu wax soo baray aan qiyaasahay waayo waa nin xagga waxbarashada ama dugsi soo maamulay ama jaamacad soo maamulay ama wax soo dhigid siyaasad qaata 20 sano ugu dambeysay runtii waa dhalinyaro laakiin wax badan ayuu ka soo qaatay sida haddaba heesta ay sheegayso ma dadkan tahriibka laga ilaaliyo ay tahay ayaan anagana waxaan goosanay dhalinyaradana ay nala qaateen intay tahriib lahayn inay kusoo biiraan booliiska Soomaaliyeed dhalinyaradan oo runtii ka baxday dugsiyada sare iyo jaamiciyiinta walow maanta jaamiciyiinta aysan halkan nala joogin oo tababar dibadda ay ku maqan yihiin aynu goordhow noo soo laaban doonaan haddana waxaa wakiilka ee qoladan oo dhowr nooc u kala baxda oo ka baxay runtii waxay goosteen in ay intimaa ilwatan maalin kasta isu sheegnaa waxaa ka mid ah in qoraxdan ay tahay qoraxdii Muqdisho roobkan uu yahay roobkii Muqdisho taasaa keentana xagga istaagan qoladan media waa iga diideen laakiin waxaan rabnaa inaan qaadano qoraxdii Soomaaliya qoraxdii Muqdisho haddaana aniga u dulqaadano qoraxda Muqdisho qof kale uma dulqaadano waddankana haddaynan anaga u istaagin cid kaloo dhib ka bixinaysa male waan loo imaaday amisom nala joogta dowladaa nala jooga hay-adaana gacan siiya haddana adigaa lagaa rabaa inay akhlaaqdaada ay suuban tahay ilaahay aad ku xiran tahay aqoontaada aad dhistaan waxaa lagaa rabaa من المهد إلى اللحد إلى بشرط سرقار وحبرتين رنتي وحكمت وزيرك ملاحظي قريب حسين جفتي سراكيش بوليس وبركي عصامينك هذا نقول ربك إيمان دونا ودروس واحد كسين دونا أنا كمان توحان ربا إن أبال مريو سلام تدك بحناي معلنك هل كان سو استاج وإنك مركز توالد الماماي مركز وحان ربا إن معلنك أنكو أبال مريو $100 ardaydan aan ku abaalmariyo min $50 maadaama ay ka qaado waxaan ula jeedaa markaas tamaanka dambe waxaan rabaa kuwa cusub inay soo istaagaan si $50 ay u qaataan waa maasantiin
marka haddana war badan ma laha mudane wasiir waa ujeedaa waxaan u diyaargaroobeynaa doorashada inay si nabad ah ku qabsoonto dalka gudihiisa gaar ahaan gobolladii way ka bilaabatay haddana waxaan joognaa magaalada muqdisho iyo gabagabadii doorashooyinkii markay gobollada ka soo dhammaadaan sidii loo qaban lahaa taasna diyaaran u nahay waxaan rabaa marka wasiirka amniga xoogaa shaqo aaday shir buu lahaa marka asagana wuxuu ka tegey $1,000 ayuu ka tegey marka meel kumuu magacaabin laakiin aniga heegan aan ku magacaaba $1,000 sidaas oo kale ayadana kooxda baambeyda $400 anaa siinaa ayadana u ballan qaaday insha Allah waxaan intaas maxaan ula jeednaa marka war waxaan haysano aan wax ku qabsano aan u istaagno sidii dalkan loogu bixin lahaa qabiilka iyo dhibka iyo jahliga haysta dadkii ka bixinlaan maanta idinka waa iyo kuwa kaloo nala mid waad xaaka naga maqan mudane wasiir ku soo dhawow tusaalahaada iyo talooyinkaada waxaan rajeynaa adiga ma garanaysaa ayaga ku garanaa intooda badan meelaha isku soo aragteen kolley ku soo dhawow bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed saraakiish xigeenta iyo dableyda bambeyda iyo kooxda halgan bacda heegan iyo kooxda heegan iyo bambeyda iyo baxda saxaafadda subax wanaagsan aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan ka soo qayb galo subaxa khamiista toddobaadlaha booliska soomaaliyeed taliya akadeemiyaddu waxay ka mid tahay waxaan ka warahayaa markii lagu magacaabay ciidanka inaan mar iska waraysanay akadeemiyaddu waxay ka mid tahay horumarinta ciidanka booliska soomaaliyeed iyo cusboonaysiintiisa si ciidanka booliska soomaaliyeed uu mar walba u ahaado ciidan u taagan hawsha loo igmaday waa inay jirtaa tababar joogtaa nolosha bani aadamku waa isbedelaysaa wax allaale wixii boolisku la macaamilo waa isbedelayaan sida aad ka warhaysaan hadda adduunka inkastoo annaga weli aysan ugu badnayn waxa ugu badan ee booliska uu la macaamilo waxaa la yidhahdaa cyber crime cyber crime waxa weeye jaraa'imta lagu geysto internetka ama lacag ha ahaato ama ilmo la duufsada ha ahaato ama gabdho ama dad la gatay ha ahaatee intaasoo dhan waxay ka dhacdaa internetka dhexdiisa haddii aan haddii aysan booliska soomaaliyeed taliya u diyaarsanayn inuu la macaamilo isbedelka bulshada ku dhacaya mar walba waxay keenaysaa inuu noqdo boolisku hay-ad laga tago laga gudbo muhiimadda ay leedahay akadeemiyada janaalkaahi waa muhiimadaas dabcan taliyuhuna wuxuu kaloo ka shaqaynayaa akadeemiyada lamida ama iskoollo hoos yimaada in laga furo caasimadaha dowlad goboleedyada dalka sida aan ka warhayo inay intooda badan hadda shaqeeyaan aad iyo aad baan waxaan u bogaadinaynaa cusboonaysiinta iyo mar walba dhiigga cusub ku shubiddeeda ciidanka booliska soomaaliyeed aaminaadda aad aamintaan wiilashiina iyo gabdhihiina dalkan yuu dalkan macno ku samayn kara dalkan waa dal barwaaqa waa dal khayraysan waa dal dihan oon cid wax kala soo baxda la arag ama baddiisa ama barigiisa intaba dalka noocaasa korkiisa dadkan waxay ugu baktiyaan oon ayagoo biyuhu laga yaaba inay jiraan 100 mitir
u baahan in 100 mitir kaliya lagala soo baxo waxay u baahan tahay marka kalsooni iyo is-aamin kalsoonidaas iyo is-aaminkaasna runtii way ka muuqataa booliska dadkiina dhalinyarada ay ku soo biiraya macnaha aad samaynaysaan eed u samaynaysaan adinku hadda isma dareemaysaan laakiin mar allaaliya markii aad ku soo biirtaan moralka booliska iyo shaqada dalka iyo guryaheena iyo hooyooyinkeena korba u kacaya mar walba ma iloobo waxaan jeclahay inaan sheego waxaa jira xadiid nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri laba indhoodba indhaha naartu ma aragto waa il ilaahay dartiis u oyday iyo il ilaahay dartiis u ilaalisay dadka indhihiinu dadka iyo dalka ayay ilaaliyaan haddii aadnaan hadda ka hor aaminsanayn waa inaa aamintaan si hooyooyinku u seexdaan si ilmuhu u seexdaan si waalidku u seexdaan yaad waxaad ka ilaalisaan tuugada argagixisada kuwa khariban ee habeenkii dheelmada iyo kuwa maalintii tuugsaqajaanka laga bilaabo ilaa midka ugu weyn yaad u soo taagantihiin haddaad intaas fahantaan waxaad qaban kartaan in intaan ka sii weyn runtii marka indhihii naarta aysan arkaynin weeye haddaad aamintaan ma aha inaad mushaar ka qaadataan keliya booliska inaad aamintaan waxaad heli kartaa adigoo mushaar qaadanaya inaad aaminto inaad dalka iyo dadka ilaalinayso nin baa inta la soo diray nin baa inta la soo diray oo miino lagu soo xiraya waxaa la yidhi hooyada iyo ilmihii kula dhashay isku soo qarxi markaasuu aamine waxa inaan aamino keliya u baahan tahay inaan dalkan iyo dadkan annagu leenahay midkaas isqarxinayan aan u sheegno inuusan hooyadiis iyo aabihiis isku qarxinin ilaan cid kaloo meeshaan joogto ma jirta uu isku qarxinayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqada aad haysaan waa shaqo weyn wax bani aadamku uu ku tabaruco oo dhiiggiisa ka qaalisan ma jiraan mar alaaliya markaad booliska soomaaliyeed noqoteenna go-aan aad ku gaartay inaad naftiina dalka iyo dadka u hurtaan iyo diinta inaad intaas aamintaana aad iyo aad muhiim u ah taliyaha waa u hambalyaynayaa mar walba runtii shaqada uu ka xornimadaad waa hibo sharafkugu hagogaani ciidaad waa hodan aad ku hiranayse waa bislaato aad ka hirqanayse waa leela kuurmaano harugaad ku maasho ku hamudirayse iyay macan waa midan hoy laga oran helayo antiyay macan waa midan hoy laga oran helayo mahadsantiin hanti macaan waa midaan hooy laga orane marka aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya taliyahana si gooni aan ugu hambalyeynaya runtii waa muuqataa intuu hayay ciidanka booliska Soomaaliyeed horumarka uu sameeyay aad iyo aad ay u muuqataa miisaankiisana saaran yihiin kan siyaasadeed kan adduunyo kan aqran labadaba waa idin hambalyeynaya taliye geelii arigii iyo lacagtii waa laga hormaray laba neef oo geelan anigana ku tabarra waa mahadsantiin هذا عدى عبد الرشيد حمزة بركة شريف وهوتيل 5 ستار كده نرجع عايزين مقدم مهاجر تناو
خمسة لأفر يعني يجيبوا العشب ينادون 10 هذا اللي حاطط أنت صدر يعني قبل الأذواق يعني ما ها صادرك بسرعة يروح النوع ما ودي أرسلها ونطمر سود بدر حبيبي حاجة شوية دبكة فياتك سود مختار طيب زدت بقول مقدم زدت بقول كل شيء ولا كان كانوا لا يفعل مركز وانا دي تسالين لا انا وانفعه
ومقالة مدحدي مقدشة مقدشة فلنا مقدشة مقدشة فلنا ورايتي دوكينيو عندي معاني وننتي دالكينيو ومقالة مدحدي مقدشة مقدشة فلنا مقدشة مقدشة فلنا ورايتي دوكينيو عندي معاني وننتي دالكينيو ومقالة مدحدي مقدشة مقدشة فلنا مقدشة مقدشة فلنا بلدكي بارلين يا بنادر
waxqabadkiisa buuxee bikuma hadlaaye mayar baa u soo baxay wadani baaxad weyno waxqabadkiisa buuxee bakiiniya baarasi iyo baladkii baadli ay banaadir la barakamaysa ayay weliba baaxad tahay guud ahaan barnaamijkeennii khamiislaha ahaa ee aynu ku soo qaadnay qeybo kala duwan oo ka xiiso badan khamiisihii hore iyadoo ay marti noogu ahaayeen wasiirkayagii arrimaha gudaha mudane cabdiraxmaan odawaa wasiirkeennii amniga gudaha mudane cabdirasaaq cumar iyo xildhibaano fara badan ayadoo ay wehelinayeen marti sharaf qiimo weyn inoogu fadhiyo tan iyo intaynu dib dambe u kulmi doonno waa Abdifataax Aadan Xasan idin leh dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa ammaan Allah